Assalaamu calaykum caruurey. Maanta waxaan baranaynaa sheeko kala cusub. Sheekadan waxay ku saabsan tahay ninkii lagu magacaabi jiray Xaaji Dhuuni. Xaaji Dhuuni wuxuu aad u jeclaa inuu wax cuno, laakiin dhibaatada waxay ahayd mar walba oo uu cuno cunto xad dhaaf ah wuu cayili jiray. Mar walba oo uu sii cayilana gaajo badan ayaa qaban jirtay oo ku qasbi jirtay raashin badan inuu cuno. Baahi kasta oo qabatana waxay ku qasbi jirtay inuu cuno raashin xad dhaaf ah. Marka noloshiisa oo dhan habkaas ayuu ku socotay. Xaaji Dhuuni wuxuu deganaa guri kuusan oo u eg sida Xaaji Dhuuni calooshiisa oo kale, oo wuxuu u kuusnaa sida calooshiisa u kuusan tahay. Ileen guri iyo dadka ku nool waa isku eg yihiin. Maalin maalmaha ka mid ah, Xaaji Dhuuni ayaa soo kacay subax alisay oo waqti hore ah oo dadka ay wada jiifaan. Ma ogtahay waxa soo kiciyay Xaaji Dhuuni? Habeenkii oo dhan ayaa wuxuu ku riyoonayay hunguri sida caadadiisa ahayd. Hal mar ayuu soo booday, sababtoo ah riyada dhexdeed ayaa wuxuu ku dhex arkay ama ku dareemay baahi daran inay qabatay oo uu dhiman rabo. Markaasuu orod jikada ku aaday. Wuxuu cunay quraacdii ugu badneed oo weligiis uu cuno. Intaan ayuu ku quraacday Xaaji Dhuuni 10 xabo oo muufo ah, 3 saxan oo cambuulo ah iyo kurbun saliid ah, 5 bakeeri oo shaahi ah, 10 bakeeri oo qaxwo ah iyo 1 dhalo oo caano ayuu cabay, iyo 4 xabo oo moos ah. 2 ukunna waa jabsaday, bakeeri ayuu ku shubtay wuuna cabay. Markuu si fiican u dhargay quraacdii cusleed oo uu aad iskugu dhibay inuu cuno, ayuu gadaal kursigiisa u fariistay. Si fiican ayuu u dhoola cadeeyay. Wuxuuna naftiisa u sheegay in quraacdii uu cunay aad ugu raaxaystay. Wuxuu yidhi quraac aad u macaan ayaan cunay, waana ku dhargay. Wallaahi ayuu dhahay, laakiin waxaan ku fikirayaa maanta waxa aan qadada u cuni doono, waxaan ku qadayn doono ayuu hadda fikirkayga yahay. Laakiin intaan qada la gaarin waa inaan baxaa oo xoogaa soo lugu baxsadaa oo caloosha waxa tirada badan ee aan cunay oo aad u magacaaneed xoogaa yar caloosha iiga degto. Xaaji Dhuuni subaxdaasi socod aad u dheer ayuu aaday. Siduu u socday magaalada banaankeed ayuu tagay. Kadib meel fog ayaa wuxuu ku arkay god meel fog ku yaalay. Markaasuu is yidhi, godkan waa yaab, sababtoo ah mar walba oo lagu baxsi aan u soo baxo markii raashin badan aan cuno, meeshan waa soo mari jiray, mana ku arkin god meeshan ku yaala weligay. Xaaji Dhuuni wuxuu aad u jeclaa umuurta dadka kale inuu faagfaago oo uu ogaado. Markaasaa wuxuu go'aansaday inuu fiiriyo godkaas waxa ku dhex jira. Kadib godka dhexdiisa markuu galay ayaa wuxuu ku arkay jaranjaro kor u socota. Maadaama Xaaji Dhuuni uu xiiso u qabay wixii cusub inuu ogaado, wuxuu go'aansaday ilaa kor jaranjarada inuu u fuulo. Jaranjarada aad ayay u dheereed. Xaaji Dhuuni dhib ayay ku ahayd inuu fuulo, laakiin si dhib ah ayuu u fuulay. Neeftuur, silac iyo dhibaato badan kadib jaranjaradii kor ayuu u fuulay. Jaranjarada meesha ugu sarreysa markuu tagay ayaa wuxuu arkay albaab aad u weyn oo weynaanta ka batay. Albaabku uu arkay albaab la mid ah weligiisa ma arkin Xaaji Dhuuni. Wuxuu ahaa albaab weynaanta ka batay. Maadaama Xaaji Dhuuni uu aad u war jeclaa, war kastana ama wax walba u ogaado uu aad u jeclaan jiray, ayaa wuxuu naftiisa ku yidhi waa inaan ogaadaa albaabkan gadaashiisa waxa ku jira. Kadib albaabka oo wax yar iilanaa ayuu isku ciriiriyey oo gudaha u soo galay. Layaab iyo ama kaag ayuu ka qaaday Xaaji Dhuuni. Wuxuu arkay wax aad u jeclaaday. Wuxuu arkay qolkii ugu weynaa oo weligiis uu arko oo meesha ku dhex yaalay. Qolka weynaantiisa wuxuu la ekaa sida garoonka banooniga lagu cayaaro oo kale. Miis ayaa dhex yilay. Miiska dhexda yaalay qolkan wuxuu la ekaa sida guri aad weyn oo villa ah. Kuraasta dhex taalay qolkan waxay la ekayd sida geedaha oo kale. Xaaji Dhuuni wuxuu dareemay markii naftiisa la barbar dhigay meeshaas inuu aad u yar yahay oo waxa meesha yaal ay yihiin wax weligiis uusan arkin oo weynaanta ka batay. Kadib sankiisa ayaa wuxuu uriyay wax caraf badan. Kadib sankiisa ayuu la raacay. Urka uu uriyay meeshuu ka imaanayay oo sankiisa la sii raacay oo jihadiisa uu fiiriyay. Wuxuu dareemay dhanka miiska kor inuu ka imaanayo. Raashin badan ayaa wuxuu ku arkay miiska inuu dul saaran yahay oo uu miiska dushiisa raashin saaran yahay. Xaaji Dhuuni wuxuu degdeg ku go'aansaday
in miiska uu dul fuulo oo uu ka dhargo raashinkaas carafta badan. wuxuu fuulay lugta kursiga dheeraa oo uu dhowr jeer kasoo dhexi lahaa si kasta oo u dhibtoodo. markii dambe wuxuu gaaray miiska korkiisa wuuna dhex fadhiistay. miiskaas mucjiso ayuu ahaa. wax walba oo meesha yaalay weynaanta ayuu ka batay. bakeeriyaasha waxay la ekaayeen sida tiirka guryaha oo kale. cambaha wuxuu la ekaa sida diidiinka oo kale. mooska meesha saarnaan wuxuu la ekaa sida idaha oo kale. kadib babaay meesha yaalay oo la ekaa sida dibiga oo kale ayuu gabal aad iyo aad u yar ka goostay, maadaama waxa meesha yaalay wax walba uu ahaa wax aad u weyn. markuu gees kale ka fiiriyey miiska ayaa wuxuu ku arkay saxankii ugu weynaa adduunka. saxankaasna waxaa dul saarnaa digir iyo galey aad u waaweyn iyo daango meesha taalay oo hashii xabo oo daango uusan weligiisa arkin meesha ay la eg tahay. xaaji dhuuni maxaa ka filanaysa oo arkay saxankan cambuulada macaan ay saaran tahay oo hortiisa yaalo. afkiisa dhareer ayaa kasoo baxay, wuxuuna bilaabay inuu cuno oo iska dharjiyo. hal mar ayaa xaaji dhuuni waxaa daboolay hoos ama har aad u weyn. xaaji dhuuni asagoo dhan ninkii weynaan nin lagu magacaabi jiray ninkii weynaanta ka batay oo meesha ku noolaa ayaa kusoo booday oo farihiisa ku qabtay. ninka weynaanka ka batay codkiisa wuxuu ahaa sida gugaca oo kale, wuxuuna weydiiyey, yaa tahay adiga? xaaji dhuuni gariir ayuu bilaabay inuu ilkihiisa isku garaaco cabsi darteed, isagoo fiirinaya indhaha birbirqaaya ee ninkii weynaanta ka batay. hal mar ay afkiisa waxaa kasoo baxay oo keliya xaaji dhuuni ayaa lay dhahaa, asagoo cod miskiina oo aad u yar ugu jawaabay. ninkii weynaanta ka batay ayaa ku dhuftay qosol sida gugaca oo kale ah. saxanadii meesha yaalaa xataa waa gariireen qosolkii uu qayliyey dartiisa. markaasaa wuxuu dhahay, haye magacaaga iyo dhaqankaaga way ismudan yihiin oo isku fiican yihiin. adiga iyo dhaqankaaga magac isku mid ah ayaad leedihiin. xaaji dhuuniyow, maanta cashar aadan weligaa ilaawi doonin oo aadan hilmaami doonin ayaa lagu dhigaa. waa in lagu baraa edab iyo akhlaaq oo dhaqankaaga la toosiyaa. caruuraya ma ogtihiin waxa ku dhacay xaaji dhuuni? ninkii weynaanta ka batay wuxuu ku amray xaaji dhuuni inuusan meesha ka bixi karin ilaa uu ka cuno oo uu dhammeeyo wax walba oo dul saarnaa saxankii weynaa. saxankii weynaanta ka batay iyo miiskii weynaanta ka batay oo dhexyaalay qolkii weynaanta ka batay. xaaji dhuuni markii uu dhammeeyey intaas oo raashin ah aad ay u xanuunsaday sidaad dareemi kartid. calooshiisana waa soo weynaatay oo weynaanta ay ka badatay, xataa waa qarxi lahaa. asaga dhan lalabo iyo jiro ayaa ku dhacday. ninkii weynaanta ka batay ayaa mar kale qabtay oo majuujiyey xaaji dhuuni, wuxuuna ku yidhi, balan waa inaad qaadaa in mar kale aadan dhuuni noqonaynin oo aad akhlaaq fiican yeelan doonto. xaaji dhuuni oo asaga dhan qarqaraya ayaa wuxuu ku jawaabay, balan ayaan kaa qaaday. maanta kadib ma samayn doono dhuuninimo. maanta ayaa iigu dambaysa. ninkii weynaanta ka batay ayaa si kulul u eegay, markaasuu ku yidhi, haye maanta waa ku dhaafi doonaa, laakiin mar kale haddii aan kaa maqlo ama aan maqlo qof sheegaya inaad dhuuni noqotay, waxay kugu dhaca adaa ka mas-uul ah. waadna yaabi doontaa waxa aan kugu samayn doono. xaaji dhuuni orod ayuu miiskii ugu soo degay. albaabkii iilanaa si dirqi ah ayuu uga soo baxay, maadaama calooshiis ay soo weynaatay oo aadta dhib ugu noqotay meeshii yaraa inuu isku xiriiriyo, maadaama raashin tira badan uu cunay. caruuraya ma ogtihiin maalintaas waxay ka dambeeyey xaaji dhuuni balantii waa ka soo baxay. caruuraya mase ogtihiin in xaaji dhuuni uu caatoobay oo uu qurux badnaaday. haddaba haddaad aragtaan qof dhuuni ah, u sheeg maalin maalmaha ka mid ah wuxuu u gacan geli doonaa ninkii weynaanta ka batay oo ciqaab adag gelin doona oo ku amri doono wax walbo oo miiskii weynaa oo dhex yiilay qolkii weynaa oo uu dul saarnaa saxankii weynaanta ka batay oo ay dul saarnaayeen raashinkii tirada badnaa in lagu qasbi doono inuu cuno oo calooshiisa ay qarxi doonto. caruuray sheekadan meeshay noogu eg tahay. ilaa aan ku kulmi doono sheekada kale waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.